أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي ولالكن أنا ابن الحسن حاتسو دواتين كانال كان مقال برودكشن إن شاء الله ما أنت برامج كان ديالين وحارة وين كله وداغو برنامج أدكو استعمالي كرتي تلفون كاغا أندرويد كام تلفون كاغا آيفون كا أدكو إديت جرين كرتي مقال برنامج كان إن شاء الله وبرنامج أيدين سوحولي وحيابها لجه لا يا ما فيجرس كولي هاي وفيجرس أد وناكسن إن شاء الله برنامج كان وحو يهاي يوسيدا لو استعماله بمقال كنا إنكو برندونا aynu gudgalno barnaamijkeena ugu horeyn intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaynu ka codsanaynaa kanalka muuqaal production haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar videogan like saar bal isku daya muuqaalkan like-tiis inaad gaarsiisin 500 oo like ah aad u mahadsantihiin ugu horeyn tallaabada ugu horeysa waxaynu ka bilaabi doonaa programkan rabo inaan idinla wadaago loo isticmaalo muuqaal samaynta qaabka loola soo degaayo أنا waxaan isticmaalayaa telephone Android ayaan isticmaalayaa waxaad soo furtaa marka Google Play Store ka aad soo furaysaa barnaamijka magaciisa waxa lagu magacaabaa Blogstar ayaa lagu magacaabaa runtii waa barnaamij dhanka muuqaal samaynta aad ugu wanaagsan intaan ka arkay muuqaalka gudihiisana waynu ku baran doonaa insha Allah marka barnaamijka linkiisa waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose videoga description ka haddii aadan description ka aadan aqoonna comment ugu hore aan ku bin garan doonaa insha Allah haddii aad isticmaashid telephone iPhone na waxaad ka raadisaa marka Apple Store ka raadi waxaad ku qortaa marka Blogstar aad ku qoraysaa marka barnaamijka marka telefoonkaada aad ku shubatid Blogstar ka waad soo furaysaa barnaamijka marka barnaamijka Blogstar ka markaad soo furtid interface-kiisa tan ayuu eegyahay anaga waxaan u baahanahay inaynu ku edit gareyno muuqaal waxaad soo furtaa marka qaybtan ay ku qoran tahay start new project aad soo furaysaa marka barnaamijku wuxuu ku soo gudbin doonaa qaybta gallery ayuu ku soo gudbin doonaa waxaad soo doorataa marka muuqaalka aad u baahantahay inaad edit gareysid ama muuqaalo badan oo aad soo dooran kartaa sidoo kale sawirooyin iyo muuqaalo aad soo dooran kartaa waxyaabaad u baahantahay inaad edit gareysid ayaad soo dooranaysaa kadib qaybtan waxaad ku dhufataa marka aad ayaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose sidoo kale barnaamijku wuxuu ku weydiin doonaa marka 3 aspect ratio ayuu ku siinayaa saddexda mid ka mid ah ayaad dooran kartaa 16:9 waa midka ugu caansan oo dhanka TV-yada iyo YouTube-ka loo isticmaalo midkan aspect ratio-gan haddii aad TikTok iyo waxyaabo portrait ah muuqaalo aad edit gareynaysidna sida Instagram-ka TikTok-ga 9:16 ka aad dooranaysaa midkan aspect ratio-giisu yahay 1:1 waa kuwii hore waa marka haddii almuhiim marka size-yan saddexdan size meeshan ku saara midka aad u baahantahay aad dooranaysaa midka ugu caansan dhanka YouTube-ka loo isticmaalo waa midkan 16:9 ay ku qoran tahay marka saddexdan mid ka mid ah marka dooratid qaybtan hoose waxaad ku dhufataa marka edit video aad ku dhufanaysaa marka barnaamijka intaadan u gudbin qaybta gudaha ee lagu edit gareeyo muuqaalka wuxuu ku siin doonaa qaybtan lagu jarjaro muuqaalka haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inta waad ku jarjari kartaa oo geesahan qaybtan trim-ka ah geesahan waad ka soo jarjari kartaa muuqaalkaaga sidoo kale qaybtan kale ay ku qoran tahay split muuqaalkaaga haddii aad u baahan tahay inaad kala jartid oo kale oo center-ka ama meel haddii aad u baahan tahay inaad ka jartidna inta aad ku kala jari kartaa marka almuhiim hadda qaybtan trim-ka iyo sidoo kale split-ka qaybta gudaha aynu ku baran doonaa hadda uma baahnin qaybtan waxaan ku dhufanayaa calaamadan saxda kore ayaan ku dhufanayaa marka ugu dambeyn waxaad u soo gudbi doontaa barnaamijka qaybta lagu edit gareeyo muuqaalka aad u soo gudbi doontaa sidoo kale tallaabadana xigta waxaynu baran doonaa insha Allah qaabka loo jarjarayo muuqaalka marka fartaada aad ku soo jiidi doontaa muuqaalka meesha marka calaamadan dheerka aad u jeedin waxa loo yaqaanaa indicator qaybtan hoose waxaad ku haysataa marka calaamad manqas ayaad ku haysataa marka meeshaad u baahan tahay muuqaalkaaga ugu horeyn waad daawanaysaa calaamadan aad u jeedin play aad ka sameyn kartaa waad ka daawan kartaa kadib meeshaad u baahan tahay inaad jartid markaad imaatid calaamadan waxaad ku dhufataa marka manqaska aad click ku siinaysaa kadib muuqaalkaaga sidaas ay u jarmi doonaa sidoo kale meel kale haddii aad u baahan tahay inaad ka kala jartid waad imaanaysaa manqaska aad click ku siinaysaa marka adigoo isticmaalaya barnaamijkan Blogstar ka qaabkan aad u jarjari kartaa muuqaal waad u jeedinayaan filayaa meeshaad u baahan tahay aad imaanaysaa waxaad ku dhufanaysaa marka calaamadan hoose ee manqaska aad click ku siinaysaa marka qaabkan aad u jarjari kartaa sidoo kale qodobkeena kale xiga insha Allah waxaynu baran doonaa qaabka waxyaabaha aadan u baahnayn looga saari karo muuqaalkaaga tusaale ahaan clip aad u baahan tahay inaad ka tirtirtid projectigaaga clipkaad u baahan tahay inaad tirtid aad imaanaysaa kadib toolishan midka ugu dambeeya aad imaanaysaa oo gacantaada midigta ah toolka waxa ku qoran delete ee ku qoran click aad ku siinaysaa kadib sidoo kale yes aad leedahay marka sidaan aad ugu tirtiri kartaa projectigaaga clip aadan u baahnayn clipku waad dooranaysaa aad u baahan tahay inaad tirtirtid ama sidoo kale geeskan calaamada hoose delete ayaa ku qoran meeshan calaamad trash ah ama delete icon ayaa saaran intaadan click aadan ku siinin sidoo kale waxaad ku delete kartaa icon-kan hoose aad click ku siinaysaa
kadib yes ayaad leedahay sidaan waad u tirtiri kartaa sidoo kale qodobkan kale insha Allah waxaynu baran doonaa qaabka loo sameeyo rearrange af Soomaaliyan waxa waa inaad isku aadisid projectigaaga tusaale labadan clip aan u baahanahay clipkan hadda inaynu soo hormarsiino waxa sameynaysaa marka clipkaad u baahan tahay inaad rearrange aad ku sameysid ayaad dooranaysaa kadib mid ka mid ah clipyada mid meeshaad u baahan tahay inaad geysid ayaad dhab siinaysaa gacantaada meeshaad u baahan tahay aad geyn kartaa marka projectigaaga waad u jeedinayaan filay hadda labadan clip waynu kala hormarsiin karnaa midkan aynu soo kala hormarsiinaynaa kadib calaamadan saxda ayaad ku dhufanaysaa marka qaabkan ayaad u sameyn kartaa rearrange adigoo isticmaalaya programka Blockstarka sidoo kale qodobkan kale insha Allah waxaynu baran doonaa qaabka muuqaalkaaga loogu sameeyo wax loo yaqaan transition af Soomaaliyan waxa la lahaa kala gudbin waxa loo isticmaalaa marka laba muuqaal ama laba sawir markay kala gudbayaan ayaad waxaad u sameyn kartaa waad qurxin kartaa marka meelaha ay ka kala go'san yihiin aad imaanaysaa labadaada muuqaal ama laba sawir ha noqdaano ama laba muuqaal ha noqdaano kadib programka wuxuu ku siinayaa marka calaamad plus ayuu ku siinayaa calaamada pluska u dhaxeeya ayaad click ku siinaysaa kadib wuxuu ku siin doonaa marka programkan transitiono aad u qurux badan midkaad u baahan tahay aad dooran doontaa waad u jeedinayaan filayaa waa transition real dhamaantooda way qurux badan yihiin marka transitionkaad u baahan tahay markaad ku apply gareysid muuqaalkaaga sidoo kale qaybtan hoose transitionka durationkiisu waad badsan kartaa waad yareyn kartaa kadib transitionkaad u baahan tahay aad ku qanacsan tahay markaad soo dooratid waxaad ku dhufanaysaa marka calaamadan sare ee saxda aad click ku siinaysaa marka transitionkan hadda aynu isla wada daawano waad u jeedinayaan filayaa saaxiibayaal waa transition runtii aad u qurux badan programkan Blockstarkan wuxuu ku siinayaa marka transitiono runtii aad u qurux badan ayuu ku siinayaa marka midkaad u baahan tahay aad ku qanacsan tahay aad soo dooran doontaa kadib muuqaalkaaga aad u isticmaali doontaa sidoo kale qodobkan kale insha Allah waxaynu baran doonaa qaabka loogu soo daraayo projectigaaga qoraal marka qaybtan toolkan oo textiga aad imaanaysaa kadib qoraalkaad u baahan tahay aad ku qoraysaa qoraalkaad u baahan tahay markaad ku qortid calaamadan saxda kore aad ku dhufanaysaa marka qaybtan wuxuu ku siinayaa marka programka fonts ayuu ku siinayaa marka fontskaad u baahan tahay aad isticmaali kartaa sidoo kale qoraalkaad waxaad ku sameyn kartaa marka waad soo weyneyn kartaa waad yareyn kartaa waad u jeedinayaan filayaa marka sidoo kale qaybtan textiga markaad imaatid waxaad ka sameyn kartaa programka marka qaybtan textiga markaad soo dooratid oo kale farta size-keeda waad yareyn kartaa sidoo kale border ayaad u sameyn kartaa outline ayaad u sameyn kartaa marka waxyaabahan insha Allah si gudgala waxyaabaha farta la xiriiro oo kale sidoo kale programkan Blockstarka wuxuu ku siinayaa qaybtan markaad soo furtid ay ku qoran tahay comic textiga qaybtan hoose fartaad waxaad u sameyn kartaa shape ayaad u sameyn kartaa waad u jeedinayaan filayaa shape-kaad u baahan tahay aad ku qanacsan tahay aad soo dooranaysaa shape badan ayaa ku jira runtii dhanka social media waxyaabo loo isticmaalay xitaa waad ka helaysaa marka sidoo kale qaybtan ay ku qoran tahay animationkana qoraalkaada aad ku dhaqaajin kartaa animation in ayaad sameyn kartaa qoraalkaaga iyo out sidoo kale overall kana waxa waaye qoraalkaaga intuu joogo dhaqdhaqaaq inuu sameeyo marka almost qaybtan animation kana si gudgala insha Allah ugu dambeyn wax walba ku saabsan qoraalkaaga marka dhameysid waxaad ku dhufanaysaa calaamadan saxda kore aad ku dhufanaysaa sidoo kale marka waxaad sameynaysaa marka qoraalkaaga meeshaad u baahan tahay aad dhigaysaa almost marka anaad waxaan u baahanahay inaan yareeyo qaybtan ayaan dhigayaa kadib sidoo kale waxaad sameyn kartaa marka qoraalkaaga intaad u baahan tahay muuqaalka inuu ku dhex jiro waad soo yareyn kartaa muuqaalka waad la ekeysiin kartaa waad u jeedinayaan filaya qaybtan hoose aniga waxaan u baahanahay muuqaalkayga cabaar markuu socdo qoraalka inuu soo galay aan u baahanahay marka geesaan ayaad ka soo yareyn doontaa insha Allah qoraalkaaga intaad u baahan tahay muuqaalka inuu ku dhex socdo marka sidoo kale qodobkeena kale insha Allah waxaan u gudgali doonaa qaabka loo sameynayo color correction marka si aad color correction aad u sameysid waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay filterka aad imaanaysaa qaybtan hoose filterka aad imaanaysaa marka meeshan waxaa ku diyaarsan runtii color aad u qurux badan ayaa ku diyaarsan marka sidoo kale qaybta hadda aad taagan tahay waa qaybta popularka geesaan haddii aad u wadid tusaalaan haddii aad xiisay sidoo kale teal orange oo kale waad isticmaali kartaa waxyaabo badan ayaad ka helaysaa marka programka dhanka color correctionka almost marka colorkaad u baahan tahay aad soo dooranaysaa color badan ayaa aad ugu diyaarsan runtii meeshan aad u qurux badan yahay programkan Blockstarka dhanka color correctionkiisana marka colorkaad u baahan tahay aad ku qanacsan tahay markaad soo dooratid qaybtan waxaad ka yareyn kartaa marka colorka ayaad ka yareyn kartaa muuqaalkaaga
boqolkiiba boqol haddii aad ka dhigtid colorka aad soo dooratay boqolkiiba boqol ayuu saari doonaa muuqaalka colorka. marka haddii aad u baahan tahay waad ka yareyn kartaa, haddii aad u baahan tahay waad ku badin kartaa. qodobkan hoose ay ku qoran tahay apply to all waxaa waaye colorka aad soo dooratay muuqaalkaaga dhammaantiisa ma u baahan tahay in la wada saaro. haddii aad furtid sidaas ayaa lagu wada saari doonaa. waan ka xiri doonaa ni hadda 2 clip ayaa meesha ii saaran oo hal muuqaal oo kala jaran, hal clip ayaa la ii saari doonaa. kadib calaamadan saxda kore ayaan ku dhufanayaa. marka hadda markaynu fiirino oo kale color correction ayaa la saaray clipka hadda aan taaganahay. clipkan kale markaan imaadano originalkiis waay, waad ujeedinayaan filayaa. haddii apply to all aan soo dhaho oo kale midkan waa la saari doonaa. intaas waan rajeynaa dhammaantiin inaad wada fahanteen. midkan hadda colorka aynu soo saarnay waa teal and orange, aad u qurux badan yahay runtii. muuqaalka originalkiisina sidaan ayuu ahaa. marka haddii aad u baahan tahay sidoo kale si manual ahaan inaad aad u samaysid color correctionka, waxaad imaataa marka qodobkan ay ku qoran tahay adjustiga ayaad imaan doontaa. qodobkan hoose adjust ayaad imaan doontaa. marka waxyaabaha color correctionka lagu sameeyo dhammaantood inta aad ku wada haysataa, inta aad ka samayn doontaa qaab manual ahaana. waan rajaynaa marka intaan inaad wada fahanteen. marka sidoo kale programkan Vlogstarka waxyaabaha cajiibka uu ku leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay qayb sticker oo animation ayuu leeyahay. qaybtan hoose waxaa soo furtaa marka stickerka ayaad soo furaysaa. runtii waxaa ku diyaarsan icono oo aad u qurux badan ayaa ku diyaarsan. haddii aad social mediaha iconskiisa aad u baahan tahay qaybtan oo aad ka helaysaa. almost marka waad ujeedinayaan filaya subscribe icon, like, waxyaabo badan aad ka helaysaa. tusaalahaan marka waxaan soo dooranayaa qaybtan iconkan like ayaan soo dooranay. iconka aad u baahan tahay click ayaad ku siinaysaa. marka iconada waxyaabaha meeshan ku diyaarsan runtii aad ay u fara badan yihiin. midkaad u baahan tahay aad dooran kartaa. aad ay u qurux badan yihiin social media icons oo animation sameynaya. haddii aad u baahan tahay waad ujeedinayaan filayaa inta aad ka helaysaa. waxyaabo badan aad ka helaysaa marka programkan sii gudgala insha Allah. almost markaan hadda waxaan soo dooranayaa animationkan oo like ayaan soo dooranayaa. iconka aad u baahan tahay markaad soo dooratid oo kale waad yareyn kartaa. kadib meeshaad u baahan tahay aad ka dhigaysaa muuqaalka. geeskan ayaan dhigayaa. kadib calaamadan hoose waxaad ku dhufanaysaa saxda ayaad ku dhufanaysaa. marka sidoo kale waxaad samayn kartaa marka iconka aad soo gelisay intaad u baahan tahay inuu ku socdo geesa ayaad kasoo yareyn kartaa. iconka shay walba aad soo dooratid geesa ayaad kasoo yareyn kartaa. waan rajaynaa intaas inaad ila wada fahanteen. muuqaalkan hadda aynu isla wada daawano. waad ujeedinayaan filaya iconka aynu soo dooranay waa qaabkan. runtii waxyaabo wuxuu leeyahay programkan Vlogstarka stickers waxay kusoo diyaariyeen runtii aad u qurux badan ayay kusoo diyaariyeen. marka stickerka aad u baahan tahay aad ka isticmaali kartaa. sidoo kale marka haddii aad u baahan tahay projectiga waxyaabo music ah inaad kusoo dartid qaybtan waxaad doorataa marka soundiga ayaad dooranaysaa. meeshan waxaad ka helaysaa marka music free ayaad ka helaysaa. haddii aadan kuwan aadan u baahnayn qaybtan waxaad ku dhufataa marka local music ayaad ku dhufanaysaa. teleefankaaga gudihiisa waxyaabaha kugu jira ayaa kuusoo furmi doona. haddii aad u baahan tahay sound effect waad ka helaysaa. recording haddii aad u baahan tahay hadda ayaad samayn kartaa. marka qaybtan u gudgala insha Allah. musiga hadda ma samayn karno sababtoo muuqaalkan waxaan sameynayaa bil Ramadaan ayaan sameynaya. marka intaas idinka idin deen doona insha Allah. sidoo kale qodobkan kale markaad fiirisin waxaa ku qoran BIP ayaa ku qoran. BIP-ga markaad soo furtid oo kale waxaad kusoo dari kartaa marka projectiga waxyaabo kale ayaad kusoo dari kartaa sida sawirooyin iyo muuqaalo kale ayaad kusoo dari kartaa. adi layers waad isdul saari doontaa insha Allah. waad ujeedinayaan filaya hadda sawirkan ayaan kusoo daray. marka meeshaad u baahan tahay aad dhigaysaa. haddii aad u baahan tahay marka waad soo crop gareyn kartaa intaad u baahan tahay projectigaaga inuu kasoo muuqdo shayga aad soo dooratay oo kale. hadda bilay markaan dhahno waad ujeedinayaan filaya sawirkaas ayaan kusoo darnay projectigeena. projectigaaga haddii aad u baahan tahay inaad kusoo dartid muuqaal kale muuqaalka dhammaadkiisa ayaad imaanaysaa. calaamada pluska ayaad click ku siinaysaa. kadib waxaad soo doorataa marka muuqaalka aad u baahan tahay inaad kusoo dartid projectigaaga ayaad soo dooranaysaa. marka sidaan waad ugu soo dari kartaa projectigaaga muuqaal kale. marka sidoo kale haddii aad u baahan tahay tuulisha sida fast motion iyo sidoo kale slow motion iyo crop iyo waxyaabo badanba muuqaaladaada mid ka mid ah aad click ku siinaysaa. kadib waxaa kuusoo furmi doona tuulal badan ayaa kuusoo furmi doono. sida waxaad ku samayn kartaa qaybtan speedka oo kale fast motion ayaad ku samayn kartaa muuqaalkaaga ama slow motion ayaad ku samayn kartaa. almost marka haddii aad one timeska aad ka yaraysid slow motion waaye. haddii aad one timeska aad ka badisid waxaa waaye fast motion waaye. kadib midkaad u baahan tahay aad ka dhigaysaa slow motion iyo sidoo kale fast motion. calaamadan sare ee saxda ayaad click ku siinaysaa.
sidoo kale toolishan qaybta hoose waxaa ka mid ah volume-ka ayaa ka mid ah. marka saaxiibayaal waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka wada heli doontiin programkan lagu magacaabo Blockstarka. marka linkiisa waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose videoga description-ka. runtii toolishiisa aad ay u fara badan yihiin. marka wax walba ku saabsan project-kaaga markaad dhameysid waxaad ku dhufanaysaa qaybtan calaamadan saxda kore aad click ku siinaysaa. sidoo kale marka waxaad doorataa marka quality-ga aad u baahan tahay aad dooranaysaa. 480 pixel maad u baahan tahay, 720 1080 pixel maad u baahan tahay. marka midkaad u baahan tahay aad dooranaysaa. sidoo kale wuxuu ku tusin doonaa file size-kaada ayuu ku tusin doonaa. marka midkaad u baahan tahay aad ku qanacsan tahay markaad dooratid quality-ga kadib qaybtan hoose waxaad ku dhufanaysaa export aad ku dhufanaysaa. marka sidaan aad dibadda ugu soo saari kartaa muuqaalkaaga adigoo isticmaalaya programkan Blockstarka. marka saaxiibayaal usii gudgala insha Allah toolisha inta kale oo dhiman. programkan waa program aad ku sameyn kartid muuqaal quality-giisa aad u sareeya. insha Allah marka muuqaalkan intaan aan kusoo gabagabeyn doonaa walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.